dufcadii lixaad ee dhammaysata tababarka ciidanka dabdamiska qaranka Somaliland oo ka kooban 42 askari ayaa maanta munaasabad lagu qabtay xarunta guud ee ciidanka dabdamiska ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadan goobjoog u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mayrada magaalooyinka Hargeysa iyo Gabiley taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ugu horreynna waxaa munaasabadan hadalka furay taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland mudane Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili xafladan maanta aynu joogno waa laba xafladood isku jira xaflad koox ka socota Hargeysa oo 9 qof iyo Gabiley 14 iyo Boorame 14 waxa loo soo xidhay maanta tababarkii asaasiga basic fire fatigue loo jiray oo 9 bilood socday waxayna jooga maanta u xidhi doona 5 ka tirsan Burco oo iyaguna aan u sameynay waxa la capacity building ama leadership hogaaminta oo iyaguna 6 bilood halkan joogay marka kooxo dhami marka tababarka ku dhameeyno haddana dib baan u soo celinaa oo nu barnaa maxaa la yiraahdaa cilmigooda sare ugu qaadnaa marka 42 baa maanta qalin jebinaya oo sii socotay doona marka waxaan ku bilownay 2014kii 30 ciidan ku bilownay maanta waxaanu marinaa 338 ayanu marinaa gobolada iyo Hargeysa marka la isku daro waxa iyaguna makarafoonka iska daba qaatay xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo waliba mas'uuliyiin kale iyagoo sheegay ahmiyadda ciidanka dabdamisku u leeyihiin bulshada Somaliland annagu ka gol ahaan waxa nagaga beegan waxa weeyaan waa xeerkii ciidanka dabdamiska qaranka annaga gacanta ku haynaa walahana insha Allah waxaan idinku bishaareynaa taliye yaagaasmiba inaanu kal fadhigan imika soo socda marka la soo galo insha Allah billahi kariim aanu xeerkii idin heer qaran aanu xeerkii idin bilaabi doono oo goluhu idin soo saari doono intaasi kadib waxa hadalka la wareegay maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid Solteko iyo maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaana hadaladoodii kamid ahaa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan isugu nimaadno qalin jebintiina aanu ka qayb qaadano shayga marka koowaad ee laga shaqeynayo shayga emergency-ga la yiraahdo waxa degdeg ah dabka qura maaha inta hawlado kale qabtaana aad bay u badan yihiin waxa weey waa shaqo adag oo u baahan ilaalin waxa sustainable la yiraahdo waa waajib saaran golayaasha deegaanka oo xeerka gobolada iyo degmooyinka ee aynu ku shaqeynaa ama golayaasha deegaanku ku shaqeeyaan wuu ku waajibinayaa dawladaha hoose iyo golayaasha deegaanka in degmo kasta ay yeelato dabdamis gabagabadii munaasabadan waxaa hadalka soo afmeeray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye aad baan ugu faraxsanahay inaan idin hor imaado oo maanta aan idin soo xidho tababarka muddada 9 bilood aad halkan ku qaadanayseen waa idin mahadnaqaynaa waxaanu idin leenahay wixii aad u barateen ee idinku tababaray dadkiina ugu adeega ummadiina ugu shaqeeya haseexanina ee hal idinku seexdo sababtoo weli dabkeen muu fadhiisan